Dunidan aan ku noolnahay, lacagtu waxay ka mid tahay hal-abuurkii ugu muhiimsanaa ee nolosha bini'aadamka u sahlay, ganacsiga iyo wada shaqaynta. Laakiin ka hor intaysan lacagtu jirin, dadku sidee bay wax u kala iibsan jireen? Aan dib ugu laabanno taariikhda marxaladihii lacagtu soo martay. Waqtiyadii hore, lacag ma jirin. Dadku waxay badeecadooda ku beddelan jireen mid kale oo ay u baahnaayeen. Nidaamkan oo loo yaqaan barter system wuxuu ahaa mid fudud, balse dhibaatadiisa ayaa ahayd badeecada aad haysatid ma helaysaa qof kaaga beddelanaya badeecadii aad adigu u baahnayd. Waxaa adkaatay in dadka baahidoodu iswaafaqdo. Sidaas ayuuna qadka uga baxay nidaamkan loo yaqaanay barter system. Kadib dadku waxa ay bilaabeen inay isticmaalaan waxyaabo qiimo badan sida dahabka, qalinka, iyo xitaa qalfoofyada wax lagu qurxiyo. Waxay u sahlaysay ganacsatada inay helaan hal shay oo dadku isku raacsan yihiin inuu qiimo leeyahay. Markii ganacsigu sii ballaartay, dowladaha iyo boqortooyooyinku waxay abuureen lacag bir ah oo rasmi ah. Lacagtani waxay ahayd mid sahlan in la qaado, la kaydiyo, lagana aqoonsado waddamo kala duwan. Qarnigii 11aad, Shiinaha lacag waraaq ah ayaa markii ugu horreysay laga isticmaalay. Lacagtani waxay u sahashay dadka inay ganacsi samayn karaan iyagoon culays badan dareemin. Tani waxay keentay isbeddel weyn oo ku yimid ganacsiga caalamiga ah. Markii tiknoolajiyaddu soo korortay, lacagtu waxay u wareegtay dhanka elektarooniga ah. Kaararka bangiyada iyo nidaamyada lacag bixinta ah ayaa noqday kuwo caalami ah. Hadda waa ay ka fududahay inaad ganacsi samayso marka loo eego waqtiyadii hore. Qarnigan, lacagta dijitaalka ah sida Bitcoin iyo Ethereum ayaa beddelay fahamka lacagta. Waa lacag ku salaysan tiknoolajiyadda blockchain, taasoo ammaan iyo hufnaan dheeri ah leh. Lacagtu waxay soo martay marxalado badan oo taariikhi ah, mid walbana waxay leedahay muhiimad gaar ah. Hadda waxaan ku noolnahay waqti lacagta loo isticmaalo qaabab aan xadidnayn. Taariikhda lacagtu waa sheeko muujinaysa sida bini'aadamku ugu dadaalay sahlidda nolosha iyo horumarka. Laakiin hal su'aal ayaa jirta: maxay noqon doontaa lacagta mustaqbalka?